in badan waxaad maqashaa alif leh, gaashaan leh, sareeyo guuto iyo darajooyin la mid ah oo ay kala leeyihiin ciidamadu. haddaba weligaa ma isweydiisay maxay ku kala duwan yihiin darajooyinkani? se intee darajo si guud uga kooban yahay ciidanku? maxayse tahay shaqada darajo kasta? sidaynu wada ogsoonnahay, ciidanku wuxuu ka mid yahay shaqooyinka ugu adag, muhiimna ay tahay in la kala amar qaato. haddii uusan ismaqal jirinna si sahlan ku burburi kara. darajada ugu hoosaysa ee ciidanka waxaa loo yaqaanaa alif leh. alif leh waa darajada ugu hoosaysa ee uu qaato qof walba oo gala ciidanka. isla maalinka aad tababarkaaga dhammaysatid qaadatidna hubkaaga waxaad tahay alif leh. sumadda aliflaha ayaa ah sidan. kadib waxaa ku soo xigta darajada la yidhaahdo laba alif leh. darajadan wuxuu ka dillacayaa askarigu inuu ahaado askari oo keliya, wuxuuna noqonayaa taliye horjooge u ah unug ka mid ah ciidamada. waxaana laba aliflaha badanaa shaqadiisu ay tahay in marka ay yimaadaan jenaraalada iyo saraakiisha ka saraysa uu kala baro ciidamada. waxaa ku soo xigta darajada saddexaad oo ah saddex alif leh. darajadan oo ay sumaddeedu tahay sidan ka muuqata shaashadda ayaa ah darajada ugu horaysa ee uu askarigu ka gelayo darajooyinka sarsare. waxaana la sheegaa in shaqada ugu muhiimsan ee uu qabto saddex alifluhu ay tahay korjoogtaynta shaqooyinka uu qabanayo laba aliflaha oo aynu soo sheegnay inuu yahay taliyaha unug ka mid ah ciidanka. kadib waxaa ku xiga darajooyinka xadhig leh iyo laba xadhig leh oo ay sumaddoodu iyagana tahay sidan. marka aad ka timaadid laba xadhig leh waxaad imaanaysaa xidig leh oo ah taliyaha koox ka mid ah ciidanka, waxaana badanaa lagu qiyaasaa kooxda uu xidigluhu taliyaha u yahay ku dhowaad 30 askari. kadib waxaa imaanaya laba xidig leh oo ay isagana sumaddiisu tahay sidan ka muuqata shaashadda. badanaana labadan darajo xidig leh iyo laba xidig leh maahan darajooyin ku kala duwan wax weyn marka laga yimaado inay u soo kala horeeyeen ciidanka. kadib waxaa imaanaya saddex xidig leh oo ay isagana shaqadiisu tahay korjoogtaynta iyo ka warhaynta darajooyinka ka hooseeya. kadibna waxaa imaanaya gaashaan leh oo ay sumaddiisu tahay sidan. gaashaan leh waxaa ku xiga gaashaanla dhexe. kadibna waxaa ku sii xiga gaashaanla sare. marka laga yimaado gaashaanla sare waxaynu u imaanaynaa saddexda darajo ee ugu saraysa ciidanka oo kala ah darajada sareeyo guuto. darajadan jenaraalka xambaarsan wuxuu awood u leeyahay inuu iclaamiyo dagaal, sidoo kalena waa taliyaha dagaal gelin kara dhammaan unugyada uu ka kooban yahay ciidanku. waxaana xusid mudan taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliyeed hadda jenaraal Odawa inuu haysto darajadan. kadib waxaa imaanaysa darajada sareeyo gaas oo ah darajo ay adag tahay in la gaaro, waana faraku-tiris jenaraalada gaaray darajadan. darajada sareeyo gaas waa hogaamiyaha ciidanka marka lagu jiro dagaalka, wuxuuna awood u leeyahay qaadashada go'aamo degdeg ah isagoon u soo noqon darajada ka saraysa iyo sidoo kale madaxda dalka. kadib waxaa imaanaysa darajada ugu saraysa ciidanka oo ah sareeyo guud. darajadan waa dhif iyo naadir in la gaaro, xitaa madaxweyne Siyaad Barre oo ahaa jenaraalkii ugu horeeyey uguna dambeeyey ee afgembi ku qabsada xukunka. darajadiisu waxay ahayd sareeyo gaas oo ma uusan gaarin darajadan sareeyo guud. waxaana ka mid ah jenaraalada Soomaaliyeed ee gaaray darajadan Allah u naxariistay sareeyo guud Maxamed Cali Samatar iyo sidoo kale sareeyo guud Bashiir Goobe oo isagana dhowaan loo dalacsiiyey darajadan.